shacabka ku dhaqan tuulada Ammaaneed oo ka tirsan degmada Booq ayaa isku tashi shacab ku qodanaya ceel riig oo ay ku baxayso adduun lacageed oo dhan 3 milyan oo bir. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaas oo isku tashi sameeyay si ay uga baxaan baahida la xiriirta dhinaca biyaha iyagoo haatan bulshadu ka cabto biyo ay ka helaan barkado. Waxa ay sameeyeen isku tashi si ay uga baxaan baahidaasi isla markaasna uga qayb qaataan horumarka ka socda deegaanka Soomaalida. runtii in badan baa qorshahan baahida biyaha aan ka tashanay haday tahay dawlad deegaanka iyo shacabka yaga in badan waxa dhacday marka hadaanu shacab nahay baahidayadii maadaama ay soo tartarayso inaanu isku tashanno wax qabad guud oo garanaysa iskaashi leh oo annagoo iska kaashanayna dadka yaga shacabka ah oo deegaanka iyo jaaliyadaha annagoo iska kaashanayna in aan ceel isku tashanno ceel aan qodorno sidaas awgeed baa maanta riigii ceelka qodi lahaana uu noo joogaa wixii isku tashiyahay hadda anagu aan qabanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa noo suura galiyay laakiin wixii wadu jeedan maanta meeshan taaganahay waa Ammaaneed waa goobtii loo asteeyay in riigka laga qodo oo ceelka laga qodo maadaama bulshadan ay muddo dheer ku soo jirtay baahi biyo ayna u soo joogtay abaaro badan oo soo noqnoqonaya oo deegaamadeena ka dhacay waxay samaysay isku tashi dal iyo dibadba ah iyagoo la tashanaya qurba joogtooda deegaanka u dhalatay iyagoo la tashanaya ganacsatadooda deegaanka u dhalatay iyagoo la tashanaya culmadooda deegaanka u dhalatay iyagoo la tashanaya siyaasiyiintooda deegaanka u dhalatay oo ay ka mid yihiin hadda kuwan taagan ee ka socda degmada Booq iyo kuwa kale oo jira dawladda dhexe intaba isku tashigoodu wuxuu gaaray heer lagu ururiyo dhaqaalo aan isleenahay wuxuu ka feyn karaa in ceel lagu qodo waxaan ku tashanay maadaama biyo la'aanu saas tahay oo dhibta ay leedahay inta la eg inaan dawladda iyo isku tashiyaga shacabka aan ceel saan u heli lahayn hameen iyo maalinba ku seexano kuna dhalan kuna seexano dacwada dawladda dhaqaalaha iyaga wada culimada odayaasha waxgaradka dadka carrada jiro aan dhalay wadanka meel walba aan u qayshanay ceel inaan helo ilaahina aan ka barino raganimada iyo dadnimada iyo dawladda taageeradeedana aan ku helo yaa talagalkayagii ah ilaahay amarkiis wakaas halka taagan wax soo saar buu diyaar u yahay. haddaba mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka degmada Booq ayaa kormeer indhayn shaqo ku soo sameeyay isku tashigan shacab iyo ceelka riiga ah ee loo qadayo gudoomiyaha maamulka degmada Booq mudane Cabdiqani Bedel Khalaf oo ka hadlaya isku tashigan shacab ee ay sameysteen shacabka ku dhaqan tuulada Ammaaneed. runtii maanta farxad weyn bay noo tahay hadaanu nahay maamulka degmada Booq ee gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida farxadaas oo runtii ah in shacabkan santarka Ammaaneed aan la qaybsano maanta horumarkan balaaran insha Allah hadii la halkan ka hana qaadi doona oo ah in riig ama ceel biyood halkan laga qodi doona hadii la yiraahdo ceel biyoodkan hadda aan joogno ee santarka Ammaaneed laga qodayo runtii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha isku tashiga bulshada lagu waxaynayo degmo ahaan oo dhanka ka qaybgalka bulshada marka la eego dhanka horumarka awoodda lagu saari doona hadii la yiraahdo ama waxyaalaha ay ahayd in awoodda ku saarno shacabka in la abaabulo oo miisaaniyada kooban ee degmadu ay hayso ama dawladdu ay hayso kaliya inaan lagu xisaabtaminin bulshada lafteeda wax qabsan karto la dhiirigeliyo marka kale dadaalada noocaas ah ay kale qayb ka tahay maantana waxaan oran karaa meel dhalkeedii ayaan taaganahay oo bilowgii koobaad ayaan ku jirnaa riigan wuxuu noqon doonaa mid hadii Ilaahay ilaa shacabku isku tashi ku qotaan dal iyo dibadba wixii hanti iyo maal lahayay la isugu keenay oo la urursaday oo lagu talagalay in biyo lagu helo biyuhuna nolosha bini'aadamka waa asaasi ama nolosha bini'aadamka waa lagu sheegi karaaba marka runtii taasi waa mid anaga aan farxad gelinaysa shacabka halkan ku noolna horumar weyn oo soo siyaaday noqon doonta hadii la yiraahdo markii gabagabo oo la qodana ay natiijo wax ku helo insha Allah noqon doonta oo lagu faano. tuulada Ammaaneed oo maamul ahaan hoos timaada degmada Booq qiyaas ahaan waxa ay u jirtaa degmadaasi in ka badan 30 kiiloomitir dhinaca koonfur bari waxaana haatan ka socda hawlo isku tashi shacab oo laga qayb qaadanayo horumarka ka socda degmooyinka deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo wakaalada warbaahinta deegaanka Soomaalida degmada Booq.